magacayga waxaa la barkad la caawil xirsi waxaan ku dhashay gaalkacyo waxaan bartay iskool waan bartay dugsi hoose dhexe waan bartay hadda shaqadeeda hayo waxay ahayd bajaaj warmay ciidanku soo qabteen waxay soo qabteen bishii 10aad 23 habeen bacda المغرب ee sanadkee 2020 waaya magacaaga xarajiga shabakada uga tirsanay magacayga uga tirsanaa barkad goorma shabakada soo dee 2017 bishii koowaad meelahaas ahayd xilliga tababarka noo bilaabmay waxaan ku soo biiray 2016 bilii ugu dambeeyay adoo 12aad meelaha waaya intaana tababarkay wax kale u gelin yaa kugu dhaliyay fikirka in aad shabakada ka mid noqoto jeeri nin la dhaay u dhaliyay jeeri magac kale ma taqaanaan jeeri ahayd maxamed jeeri ma tilmaan ka bixi ma nin yar baa mise nin weyn haye maxaa jeeri loogu bixiyey lug buu ka dhutiyaa muxuu magaalada gaalkacay ka qaban jiray isagu shaqa caadiya isagu dukaan buu lahaa markii ugu dambeysana bajaaj loo ahaa sidee idinkugu soo biiray shabakada inaad ka mid noqoto uga dambeeyey wuxuu uga dambeeyey anoo ilmo yaraa dukaankiisa wax ka gadgadan jirnay waqti hore ahayd dukaankiisa imaan jirnay asagaa nagu tashkiiladay inaan shabakadan kusoo biirno dadka la dagaalno qaabkee marka hore wuxuu noogu soo biiriyey qaab ah inaan diinta u dagaalaman markii dambena dadkii yiri dadku waa gaal la dagaal dhalinyarada shabakadaada ka tirsan yaa madax u ahaa oo 5 gaaraysa 6 qof anaa madax u ahaa waxaad ii kala dhigtaa shabakadaada inta qof ay ku jirtay oo ugu madaxda u ahayd waxay ahaayeen Muniir Kulu Abujonga Barkhad iyo Liibaan lixdan ayaa jira yaa qaybta dilka qaabilsanaa wax dilay 6 aniga iyo Muniir labo iyo Abujonga haye iyo Liibaan afar waxaa lahaa Ohio maxaa lahaa Ohio meel yiraahdo oo lagu dilay Mukhtaar Umar Tiile miyaa abtiriskiisa ma aqaan laakiin Mukhtaar baa la maxay shaqadiisu ahayd wuxuu ka shaqeynayay xildhibaan buu dowladda hoose adaa gacanta koowaad lahaa waa gad waxaa kale yaa caawiyaha ahaa xabadda koowaad maadaa dhammaystiran mise qof baa caawiyaha Muniir baa caawiya ahaa si fiican maxaa kaloo jira Mukhtaar waa gad iyo Gandhi oo ahaa sargaal ciidamada ka tirsan inji waa gad yaa kale iyo Abu Hurayra dil ka dhacay masjidka Abu Hurayra isna yaa ku dishay ninka magaciisa waxaa la dhahaa waa Abu Hurayradii hore weey labada Abu Hurayra magaciisa waa maqan yahay oo ka maqan yahay waa Abu Hurayradii hore magacayga Faxaan Faysalaad weey magacayga xarakiya Muniir baan dhahay magaalada gaalkacyo ku dhashay garow waxaan ku bartaa gaana waxaan ku bartaa tuutima ku soo biiray qaybta jeeri qaybtiisa maxaa qaabilsanayda gacanta qaabilsanayda xil noo dira qaban jirnay gacanta say dilka madax jabinta waaye sidee ku soo gashay shabakadan faahfaahi qaabka aad shabakadan ku soo gashay iyo sida loo ku tashkiiliyay jeeraan tashkiiladan jiray dukaankiisa lagu tashkiiladan jiray dukaankiisa waxay ugu maajin hagaas lagu tashkiiladan jiray qaabkee waa u maajin tashkiiladan jiray waxaanu soo balay jiray qaabka ma soo balay shaabnimada anagana waa ka yeelay maxaa ka mid ah waxyaabo inuu ku tashkiilin jiray raaxanadiis iskoolada ay siinayay baawur bal lacag badan baa iska dhishanaya baawur baa ku soconaysa waa shaqeynaysaa gaaladan baa iska qabanaa wadanka haysta iyo waxaasna u dhijir waxyaalo badan aan xasuusanahay dirtaan okay jeeri magac kale ma taqaanaa may
واحد ماشي شغادي سواحد شيري مركز اللي جاي معه شغاده الشباب وهي دكان بو ganacsi buu lahaa xagee ku yaala dukaankaas xaafadeena xaafadee israac xaafadda israac waaya jeer muxuu ahaa taytalkiisu muxuu ahaa amiir buu ahaa umal ku xiga yaa sareeyay isagay umal Abdulqaadir uma baa sareeyay waxaad ii tirisaa inta qof aad shay adigu gacanta aad lahayd nooc istaalka weyn mid aan ku dilnay magaciisa ma aqaan magaciisa ma taqaan may waaya istaalka weyn baa ku dishay sanadkee sanadka ma xasuusto kulligood sanadka ma xasuusto waaya ninkaas istaalka weyn ku dishay kow iyo dulqarnayn mid aan ku dilnay magaciisa dulqarnayn yaa ku dishay dibi gabi sargaal ka tirsan ciidamada Puntland waaga labo kabida yaa ku dishay faray miya xaj faray gacanta labaad aan lahaa Ohio maqaaxida leeyahay galka ku taala yaa ku dishay inta dheere muxtaar yaa gacanta koowaad lahaa barqad baa lahaa Abdullah Faisal Hussein magacay xarakiga waa Jonga xarakada waxa ku soo biiray 2017 bishii ma xasuustaa may bishii aad ma xasuusto laakiin 2017 bilow 2017 yaa kugu soo daray ururka al-shabaab waxa igu soo daray ninka barxad la dhoo kadib wuxuu ii geeyay jeeri barxad baa adigu ku keen ma kor soo qabtay jeeri buu kugu daray barxad saaxiib baa ahayn see ku keen barxad saaxiib baa ahayn jeeri buu ku keen jeeri magac kale ma leeyahay jeeri magac kale maxamed baa la maxamed jeeri dadka u tilmaam waa qof caynkee jeeri waa qof aad u xun waa qof dhalinyarta dalka u dhalatay kuleyniyay dadkoodii waa gartay wuxuu jeeri nagu tashkiiladeeyay inay yihiin dadku dad xun annagoo aad u yaryar oo dhowr 10 jir ah wuxuu noo sheegay inay dadkeenu yihiin dad xun dad gaala is ahayn dad islaam oo asaguna yahay inuu naga dhex qabtay dadkii laba kun toddoba iyo toban hadda shabakada kusoo biiray tababarka noocaas qaatay waxaad dib ugu laabanaynaa operationnadaad fulisay ama hawlgalladaad fulisay ma xasuusataa cidda aad dishay adigu ma jirtaa cid aad dishay laba nin xabadda koowaad ku dhuftay gacanta koowaad مرحوم اكيس كاشاله سري عبد الرشيد حاشي عبد الرشيد حسن حاشي isla markaana loo haystay waa soo koobkoobaya oo macnaha de wala wada maqlayay ama waa la wada akhristay